yay ugu sheegaan dadku qaar waxay leeyihiin waxa tahay Yohana Baptisaha qaar kalena waxay leeyihiin waxa tahay Elias iyadoo qaar kalena ay leeyihiin mid ka mid ah nabiyashii bari hore ayaa soo noolaaday idinku ayaad igu sheegtaan waxa tahay Masiixa Ilaah cidna ha u sheegina tan wiilka aadanuhu waa inuu aad u sicaa oo la diidaa isaga waa la dili doonaa laakiin 3 beri kadib ayaa la sara kicin doonaa midkiin soo raacaya waan ku raacay sayidow laakiin horta iyo goloobina soo macaslaameeyo qoyskayga qofka bilaaba in uu falo oo kadibna gadaal sii eega qiimo uma lahan boqortooyada Ilaah haddii uu qof doonayo inuu soo raaco waa inuu islaawaa oo isku tilaabtiisa soo qaataa maalin waliba oo soo raaca waayo ku kasta oo noloshiisa badbaadiya wuu waayi doonaa oo ku kasta oo u waayay naftiisa daraaday wuu badbaadi doonaa muxuu ninka faa'iidaa haddii uu dunida oo dhan helo kadibna uu naftiisa waayo haddii qofuun ka jeesto aniga iyo waxbaridayda kadibna wiilka aadanuhu wuu ka jeesan doonaa marka uu ku yimaado ammaantiisa iyo ammaanta aabbaha iyo malaa'igaha quduuska waxaan idin ballanqaadayaa inay jiraan kuwa halkan joogo oo aan dhiman doonin ilaa ay boqortooyada ila harkaan kadib ciise wuxuu kaxeeyey Yohana iyo Yacquub oo Butros la jiro oo wuxuu aaday xagga buurta si uu u tukado oo intuu isagu tukanayay ayaa waxa isbedelay wajigiisa iyo muuqaalkiisa oo dharkiisuna waxay noqdeen caddaan ifaya markiiba 2 nin ayaa isaga la hadlaysay oo iyagu waxay ahaayeen Muuse iyo Elias oo ka dhex muuqday ammaanta jannada adigu waxaad buuxin doontaa ujeedada Ilaah waxaad ku dhiman doontaa Yeruusaalem markay ka tegayeen ayuu Butros Ciise ku yidhi sayidow sidee u fiicneed inaan halkan joogno waxaanu samayn 3 teendho mid adiga ah intii uu Butros hadlayay ayaa waxaa timid daruur oo daruurtii ayaa iyaga hadhaysay xertiina way baqeen oo cod ayaa daruurta ka dhex hadlay kaasoo lahaa kan waa wiilkayga kaan doortay maqla isaga معلم waxaan baryayaa inaad wiilkayga eegto fadlan isaga caawi waayo waa dhallaankayga keliya
waxaan ka baryayaa xertaada inay ka saaraan laakiin way awoodi waayeen qarniyahu rumaysadka daran oo madax adagu intee ayaan idinla joogayaa oo idin dulqaadanayaa wiilkaaga halkan keen wejigiisa waa la bogsiiyey waa cajaa'ib nabarsi loo tukado sida yooxana u baray xertiisa marka aad tukanaysaan dhaha aabbaha iyaga samada ku jiro magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaado